koob iyo tobankii June 2010 garoonka Soccer City Stadium Johannesburg ee South Africa heesta loo doortay furitaankii koobka adduunka ee waagaas waa tan la magac baxday waving flag iyo xidiga caalamiga ah ee Soomaaliyeed Keenan Cabdi Warsame ayaa mar qura ruuxay masraxaas caalamiga ah halka ayuuna ka bilowday socdaalka heesta dunideena oo dhan ku wareegtay ee waving flag taa oo gole kasta oo laga qaado calanka dalkeenuna ku lamaan yahay kayna tanuune waxaynu dul istaagaynaa oo waxuun ka baranaynaa sheekada caanbaxa Keenan iyo sida uu ku noqday kan loo aqoonsan yahay inuu mideeyay codadka muusiga Soomaaliyeed iyo kan caalamka My birth country, Somalia, is the incredible and profound respect that they have for language. dalkayga hooyo ee Soomaaliya waxa uu ixtiraamka ugu weyn ku leeyahay dhinaca luqadiisa oo ah mid suugaaneed awoowahay ayaa taasi fahansiiyay markii aan jiray 7 sano marka isagu wadooyinka socdo sida ay dadku u ixtiraamaan ayaan la cajabi jiray waxaana ogaaday inay taasi tahay wax ku yimid suugaantiisa waana taas dhabtii mid ay saamaysay aniga My father, he been trying to get us a way out of the country. aabahay ayaa dalkayga hooyo ee Soomaaliya ka soo kaxayay qoyskeena intii uu ka talinayay kacaanku kadib markii dadkii haldoorka ahaa oo dhami dalka ka carareen markii ugu horeysay ee aan maqlo waxa codadka hip hop yihiin waxay ahayd heesta Eric B iyo Rakim ee Paid in Full 13 sano ayaan jiray markii aan dalkayga ka imid hip hop tana waxaan u arkay waxuun ina xiriirin kara aniga dalkayga hooyo iyo mustaqbalkaygaba socodka dheer ee uu Keenan ku noqday xidig hip hopta iyo heesaha caadiga ah labadaba dunida caan uga noqda halka ayuu ka bilowday ilaa heestiisa waving flag noqotay tan adduunka ugu caansan iyo astaanta ciyaaraha koobka adduunka oo ah tartan ciyaareed 4 sanoba dunida oo dhan mar kulan siiya I was in Tokyo 2 days ago and we were walking around in downtown. laba maalmood ka hor waxaynu joognay Tokyo wadada ayaan soconay dabadeed barxadda weyn ee Tokyo waxaan ku aragnay screen dhalo weyn oo halkaas saarnayd taa oo ay ka shidnayd waving flag wax aan caadi ahayn ayay ahayd inaan midaasi arko Keenan waxa uu bilowgii ku dhibtooday inuu xidig hip hopta noqdo iyadoo uu muslim haddana madow yahay waxa ay dadkii uu garabka uga baahday oo dhami u arkayeen mid aan ka dhabayn karin rumaynta riyadiisaas Well intentioned. He wanted me to one day be a successful rapper. And he said, mid ka mid ah dhalinyarada oo aad igu fiirsaday ayaa maalin igu yiri ma dareemayo wanaag dhabtii markaan eego waxa aad ku fakarayso xitaa sigaar ma cabtid haddana waxa aad doonaysaa inaad rapper guuleystay noqoto tan waxaynu ka baran karaa in rumaynta riyooyinku adkaysi iyo ka go'naansho u baahan yihiin waana midda tan Keenan ka dhigtay xidig adduun ha yeeshee miduu weli ka murugaysan yahay Keenan ayaa jirta You took the World Cup to Africa. that's right. That is, you couldn't take it to Somalia though, right? No, unfortunately, no. Afrika oo dhan ayaad kula wareegtay koobka adduunka laakiin Soomaaliya ma aad geyn sax maya nasiib darro maya wixii ugu fiicnaa ee aan doonayay ayay ahayd xiriir dhow ayaa inaga dhaxeeya dalkayga inaan koobka agagaarkiisa ku wareejiyo isagana aanan geyn nasiib darro ayay ahayd sabab amaan xumo ayayna taasi u suurta geli weyday ha oo baratanka dunida bandhigyada caalamiga ah iyo baraaraha la gaarayba waxa inaga reebay siyaasad xumo amni xumo aynu inagu kasbanay iyo arrin xumo